maanta oo taariikhda u tahay 19 bishii 2019 waxaan shirkaan jiray ugu qabanaya goobta aan deganahay anoo ah gudoomiyihii golaha hoggaanka Habargidir Rasuul Cabdiqaadir Maxamed Sharwa waa dhacdadii u dambeysay ka dhacday deegaanka Afbarwaaqo iyo Tawfiiq waxaan rabaa inaan mahad celiyo intii ka qayb qaadatay nabadeynta dhibka dhacay deegaanka ka dhacay haday tahay deegaanka uu ka dhacay galmudug iyo meelaha ay Puntland dariska ka yihiin dowladda federaalka kaalinta ay ka qaadatay ciidamada 12aad ee halka loo diray iyo madaxdoodaba dadka deegaanada aan hadda sheegay degan ama gaalkacyo degan ee uqaasha ah isinka ah hawsha siday ugu istaageen oo ay xabad joojin ka hirgeliyeen deegaanka aad baan ugu mahad celinayaa inta uu istaagtay ee aanan magac dhabin saxaafadda laftooda kaalin weyn bay ka qaadatay oo adduunka ayay u soo gudbisay hadba heerka ay marayso nabadda ayada waxaan Ilaahay ka baryayaa inay sida ay u bilaabatay nabadda inay ku sii socoto dadkaasi deegaanka ku wada nool ay nabad ku noolaadaan horumarkoodana ay ka shaqeeyaan oo ka fakaraan waxaanse ii muuqata inaan nabad sal adag leh aysan weli muuqan inta hawsha ay la wareegayaan dadka deegaanka iyo odayaal dhaqameedyadu ciidamadu deegaankoodii bay ku soo noqon doonaan iyo xarumahoodii waxa isu dhani waa dadka wada degan ee halka Ilaah ku abuuray meel kale u kala guurimaysaan dagaalna wax faa'iido u leeyahay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho aqligu inuu shaqeeyo waa laga maarmaan gobolada dhexe iyo inta dabku ka kacanay dagaaladu mar walba ka jiraan waxaan ugu baaqaynaa in nabad la qaato ayadaana runtii golahani u aasmay inuu Ilaahay idankiisana inuu kamira dhaliyo sida ugu dhaqsiyaha badan uu rajeynayo golahani wuxuu diri doonaa hadii ay yiraahdo qorsheysan guddi taga oo kala qayb qaata nabadeynta ayada ah odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka codkaasi horumarinaya anigoo golaha magaciisa ku hadlahaya walaalayaal iyo odayaal inta aad dirireyseen maanta hadii la idin weydiiyo waxa aad ku dirireysaan mar walba isku maageysaan wax idin ka badan weey waa dhulkuna waa idin ka badan intayni jirin buu dhulku jiray waana jiri doonaa marka inaan dhalinyarada la isku baabi'in ee aqligu shaqeeyaan soo jeedinayna tabashada wixii ah insha Allah waa gali doonaa halka ay sarto ka qorantana waa heli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo dhinacyada waxaan labada dhinac ee dagaalamaya daraf ay dagaalamaya waa la kabaya marka dadka xumaanta ku kabaya waxaan u jeedinayaa inay aakhiradooda ay u jeestaan inay Ilaahay dartiis hawsha nabadeynta uga qayb qaataan dabka inaysan baasiin ku sii shubana sii qarxin ceel hadaa tiraahdo bax ceel kala abuurmaya faa'iido ma dagaalku faa'iido marna ma dhalo marka waxaan soo jeedinaynaa waana imaanaynaa in odayaasha iyo dhaqankuna hawsha sii wadaan waan isla wadaynaa hadii Ilaahay yiraahdo dowladda federaalka ah waxa kaga abaaran hawsha kaga abaaran waa qaybteedii koobaad way qaadatay waana u mahad celinaynaa wali fari kama qodna inta nabadu sal dhiganayso inay sahlaan cid alla cidii hawsha iyada ah isku taagta oo rabta inay wax ka qabato inay garab ku siiyaan waana hubaa inay ku siin doonaan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan walaalayaal waxaan soo dhaweynayaa mar kale rabaa inaan u mahad celiyo in alla intii uu istaagtay culimada odayaasha dhaqanka haweenka ururada bulshada dhammaan labada deegaan ee Tawfiiq iyo Afbarwaaqo sida daacadnimada leh ee hawsha u galeen Ilaahay waxaan ka rajeynayaa niyadooda wanaagsan in Ilaahay u qaado oo nabad waarta oo deegaanka ka hirgalo si ay horumarkooda ay ka hareen inay si ay ula talaabsadaan deegaanada dariska la ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.